waxaan kulankeena maanta doonayaa inaan idiin soo bandhigo fariin ama xog bayaaneed sidoo aan kula hadlayo golaha dhexe ee wadani hoggaanka wadani bulshada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda anigoo filaya insha Allah inuu noqoto fariintaydan mid dhaxal wanaagsan keeni karta iyadoo aan u gudbinayo aqoon-yahanka siyaasiyiinta indhaargaradka qaybaha bulshada oo dhan ka kooban tahay si aan u soo jeediyo qulubtooda ula socdaana dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaale codkoodana uga dhiibtaan iyadoo loo midoobayo sidii isbeddel gundheer loogu samayn lahaa dalkan iyo dadkan la kala qoqobay ee inba gees loo dareersaday waxaan jeclahay in aan dareensiiyo ama soo bandhigo in xisbiga wadani uu yahay xisbi ballaaran oo ka kooban axsaab fara badan oo midoobay taas oo magaca guud ka wada yahay wadani waayo nin waliba wuxuu ka dhex arkay maalintu ku biirayay dantiisa ama aragtidiisa siyaasadeed waxaanan jeclahay insha Allah biidnillaahi alkariim inaanu noqon NGO min jeebka ku sito ee uu noqdo xisbi ballaaran oo hanta ummadda oo dhan haddaanu nahay qoladii musharaxiinta iyo hoggaanka wadani waxaanu nahay niman muddo dheer soo wada shaqaynayay oo is-yaqaana kamana filayno inayna dhex marto kala shaki iyo kala baqasho isna waa nin jecel cabdiraxmaan waa nin jecel wanaagga iyo cadaaladda kalsooni badanna leh aqoon ku filanna leh guusha iyo guuldarradana kala yaqaana una muuqato marka ay la soo gudboonaato xalkeedu waxaana la yidhahdaa talada wanaagsan waxaa ka dhasha midho macaan hadday noqoto midi ku taag ama xaajo afgaran waageeda iyo isfahamkeedu uu adkaado wuxuun bay keentaan waa khasaare tafaraaruq daciifnimo mahmaha baad tidhaahdana kaba yari ama ku seegta ama ku dhaanta waxaana noo hoggaana xadaaradda iyo siyaasadda hufan si aanu u raali gelinno qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa iyadana aanan ka tegayn oo aanu jeclay inaanu gaadhsiino bulshada haddaanu nahay damcalayda iyo hoggaanka xisbigaba waan ognahay waanan u diyaarnahay in aan nalaga guulaysan inta wax qiimaysa inta wax soo bandhigta dhaliilaha maalinlaha ah iyo inta wax gudbisa bulshada u gudbisa waxaanu abuuri doonaa insha Allah isbeddel gundheer oo siyaasadeed oo dhaqan dhaqaale oo aan gaadhsiino saaxadda siyaasadeed ee caalamiga ah sida waddamada horuu maray ay u qanciyaan muwaadinkooda iyo tartanadooda iyo wax qaybsigooda iyo
wax isku darsigooda waxaanan dhowri doonnaa insha allah haddaanu nahay damacleyda ama musharaxiinta oo aanu ilaalin doonnaa dhammaan shuruucda xisbiga u yaalla xeer hoosaadyadiisa iyo habdhaqankiisa hoggaan annagoo ku kalsoon inaanan insha allah ku kala tegi doonin rabitaanka iyaga iyo rabitaankooda marka labadaba la isku daro waxaana ugu dambayntii aan ku soo gebagabaynayaa shirkaygan jaraa'id cabdiraxmaan iyo hoggaanka maanta xisbiga waddani ayagaa maanta gacanta ku haya mindida ama xadhigga iyagaa haya kolba siday noo maamulaan ama sida ay fagaarayaasha ay u soo bandhigaan kartidooda iyo aqoontooda iyo kalsoonidooda ayuunbay bulshada reer somalilan kala kulmi doonaan annagu ma nihin niman isku qabsanaya ama ku caytamaya ama loogu garnaqaayo ama xeerbeegta loo kala diraayo ma noqon doonno insha allah waxaanu rajaynaynaa inay sida ugu habboon u fahmaan inaannu taagannahay xaq waddani ah oo ah in aan wax doortana waan leeyahay in lay doortana waan leeyahay waxaan u hambalyaynayaa oo aan jeclay isna inaan halkan hawada u mariyo hambalyo musharax madaxweyne cabdisalaan yaasiin oo nin taariikh weyn jamhuuriyadda somalilan iyo bulshadeeda waana soo dhowaynayaa waxaanan leeyahay hambalyo insha allahu waananu isu iman doonnaa insha allahu maalmo aan fogeyn kadib والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشح waxaa iscasilay hoggaanka xisbiga waddani Maxamuud Raage horena waxaa isku casilay mas'uuliyiinta waxa la hayaa maxay tahay ku soo jireen والله محمد عبد الله هو تاسو waxa weeyaan baan filayaa waxuun ka dhex yimi hoggaanka xisbiga waxaan jeclahay maaha inaan farageliyo ama aan ka sii hadlo waxaana jeclay inay wanaagsanaadaan insha allahu wixii iyaga dhexdooda inay wanaag ku dhammaystaan baan jeclay